runta weeye waa runta weeye waa garo garta weeye waa garo garta weeye waa garo garta weeye garta geel lama saare beertu way cabanaysay beertu way cabanaysay markaad maqasho magaalada Berbera waxyaabaha laga yaabo inay kugu soo dhacaan isla markaba waxa kamid ah sheekooyinka jacaylka ee cilmi boodari iyo xeebaha aadka u wanaagsan ee Batalaale ee ku yaala magaalada Berbera laakiin marnaba waxa laga yaabaa in aan kugu soo dhicin dhinaca beeraha iyo wax soo saarkooda maanta waxaanu joognaa beer ku taala deegaanka Biyo Guure oo 16 kilomitir dhinaca bari ka xiga magaalada Berbera beertan waxay ka mid tahay beeraha sanadadii ugu dambeysay laga beero timirta oo timir aad iyo aad u macaan ay waliba ka soo goodo beertan waxa iska leh Bila Xirsiid Bila aad iyo aad baan ku salaamaya iska waran iyo rasuul Allah wanaagsanaa timirtan waxaan u maleynayaa waa tii beerta ka soo gooday miya timirtan waxay ka soo gooday beertan waxay ka gooday geedka kamarada hoosta leenanka salaanku saaran yahay ka soo gooday dhinaceena waana timirta u dhiganta timirtii wadanka dibadda looga soo keeni jiray muddo imika 13 sanadood baa timirtaasi soo go'aysay waxay ka soo go'aysay beertan imika joogno hareeraheedana muuqda iyo mid kale oo la jaaro islaanigu aan leeyahay waxaanay ku bislaatay geedka process lama marin fertilizer ma arag waxyaalaha wax lagu nafaqeeyo dibadda laga keeno ma arag sidii ilaahay uu abuuray geedku baan u beeray dabadna way baxday waa waraabina waa ku tacanadeedna waa taa timirtiisu أنا يدين دمية رنتي أدي أدو معان تهاي بلو ماذا وجهري مركا قف تمر دجان كبيرة waxaan ugu horeeyay qof timir beer oo dawladda ka ganacsada waxa iga horeeyay timir oo beer Cabdishakuur Cidin oo aanu jaarnahay waa duqa magaalada Berbera laakiin isagu inta u baxday wuxuu bixiyaa sadaqadii waxa soo siiyay dadka jaararka iyo waxa anigu se commercial baan ku dayay waxayna noqotay timir ka macaan oo ka tayo badan oo ka wanaagsan timirtii dibadda runtii dhadhankeeda lagama go'ayo aad iyo aad bay u wanaagsantahay maxaad ku keentay markii hore inaad deegaankan timir aad ka ganacsato aad ku beertid absalaam anigu markii hore ma ahayn family beeralaya waxaan ka soo jeeday family xoolo dhaqato ah oo ku soo barbaray sida xoolaha loo dhaqdo iyo raacistooda iyo ilaalintooda markii dambena aan magaalo galay aan wax bartay ee aan shaqeeyay duruufta Berbera ay keentay inaan ka shaqeeyo ayaa waxay muuqatay banaan isku dayo nidaamka beeraha timirta waxa ka horeeyo dadku ila yaabi jireen in waalan haystaan cambalafka haay badda 4 kilomitir bay jirtaa dabadna dadku waxay aaminsanaayeen geedka cambalafka leh inaanu ka bixi karin badda iyo xeebta iyo gubanka waati marka beertan ku yaala Soomaa cambalafka beertan ku yaala dhinacaas inaga xiga dabadna waxaan ku gooleysay cambalafki markuu mira keenay waxay muuqatay timirtu in iyaduna wax ka baxa kuleelaha wax ka baxa xeebaha wax hore loo tijaabiyay oo Ingiriisku ku beeray dubar meesha la yiraahdo miro dhashay haay dawladda Maxamed Siyaad Barre waqtiga ay jirtay ku beertay meesha la yiraahdo Bullaxaar oo lagu gooleysay dadna waxaan isku dayay inaan timirta beero timirtu laakiin cimiladan Berbero kale u baahan tahay sideedaba Soomaa haddii loo dadaalo meelaha oogada qababna way ka baxaysaa meel kasta xilli diiran bay leedahay xilliga diiran ee kalisha la yiraahdo ay midha keenaysa haddaad Hargeysa aragto meesha ay ku yaalto maxkamadda sare dhinaceeda waxaad arkaysaa timir badan oo ka baxday iyo meelo badan oo Hargeysa midhaha way keentay midhaha way casaysaa nidaamka la isku bacramiyay ay timir u noqoto khariifta uga tagto baanay lahayn laakiin way ka baxaysaa Hargeysa marka la eego ceelaf weyn wixii gaar adag in la inta raacsan oogada sare ee aan hawdka ahayn way ka baxdaa marka haddii lagu dadaalo waxaad arkaysaa timir wayla oo duur ku baxa oo fara badan oo ka baxda halka markaad ka tagto buuraha Sheekh raacdo bari oo dhan way ku taalo laakiin jawiga ugu wanaagsan timirtu ay ku baxdaa waa kan xeebta Soomaa kan xeebta waa cimilada kulul ee aad u diiran bay ku baxaysaa biyo fara badan oo u baahan tahay miya waxay u baahan tahay biyo fara badan xilliga qabowga mooyaan xilliga kuleelka waxay ku beegmaysaa xagaa waxay ku beegmaysaa hanfi waxay ku beegmaysaa evaporation fara badan waxa soo celin kara waa biyaha in biyaha hesho markii hore waxaad ii sheegtay in dhirtii timirta ahayd halkan aad ku beertay in carabaad ka keentay xageed ka keentay marka ma iyagoo sidoodii beeran baad keentay waxaan ka keenay ugu horeysay Yemen iyagoo dhir roon oo xoogaa laaleeg
dabeedna waan beeray dabeedna 3 sanadood kadib bay midhaha keeneen waxaa jirta dhir lafta aanu beeray oo laftu baxday taasaa ka dhaqso badan halkaa geedka ku yaala ee gunta midhaha kule ee timirta ay casaanaysa iminka wuxuu jiraa sanadkiisii 3aad buu iminka ku jiraa waana kaa midhaha leh waana laftii aanu beeray maxay ku kala duwan yihiin markaa bilow dhirtii halkan aad ku beerteen iyo kuwii Yaman aad ka keentay marka geedka dibadda laga keeno ama meel kale laga soo raro ee la soo raro ee laga saaro systemkii uu noolaa ee lagu beero mid kale habnololeed kale stress baa ku dhacaya qulub wax leedo ama sida dadka dhirtana qulub baa ku dhacaya qulubkaas wuxuu saameeyaa inuu dib u dhac ku yimaado koritaankiisa midhihiisa wixiiba laftu markay baxdo dhaqso u baxaysa stress mala qulubna mala waxna ku dhacmayaan sidii uu dhashay uu kale uu ka hor korrimo badan yahay degdegna uu baxaya cimiladana uu kala qabsi badan yahay bilow markaad timirtan beertaada ka soo gooday u eegto tii dibadda laga keeni jiray gaar ahaan wadamada khaliijka maxay ku kala duwan yihiin baad oranay timirta dibadda laga keeno process bay martaa dheecaanka waa laga keenaa processka ay maraysaa timireeya tanina geedka ku bislaatay wixii ay dheecaan lahayd waxay khudaarad lahayd wixii marka timraha laga keeno dibadda ay shadaafta ku jirtay dheecaankii fara badnaa ay ka bixi jiray wixiiba lafteeda ku jiraan qofku wuu ku cunayaa taasina waxaad arkaysaa in timir la bisleeyo oo dheecaan fara badan dibadda ka joogo oo dheecaan ka baxay ay tahay tanna waa sidee geedka kaga soo gooday waa hilib nimanka carabta ka yimaada waa hilib nimanka carabta ka yimaada ama Yaman ha ka yimaadeen ama Sacuudi ha ka yimaadeen ee wadanka ka shaqeeya tanay soo doontaan way waxay yiraahdeen timirta processka martay haday doonto 20 sanadood ba qaarkeed stoorka ku jireen haday doonto 10 sanadood ba stoorka ku jireen tanna saakay gooday maantana wad cunaysaa kana ka wanaagsan wax soo saarka marka deegaankan beertaadu ay ka mid tahay timirtu magaalada Berbera ma ku filan yihiin ma kuma filan waxa kala badan waxaanu soo saarayno iyo baahida dadka intaana Berbera gaadhin dadka ogaaday timirtan Hargeysa lagala soo hadlayaa waxa lagu oranayaa timirta noocaas ee Berbera soo saartay baanu doonaynaa dadkii maharadaha timiraha waxa ay biya ku imanaya waxa ugu la yaabka badnaa sanad dhawada timirtu badnaydoo aan hal tan baa ka soo go'ay dadna suuqa xoog u gashay telefoon xamar ay ku soo dhacay telefoon xamarna ma aan markaa garan timirta la weydiiyay warma timir baad weydiinaysaa waan ku yiri waxaan salaamaan ku yiri malawa ninkan siyaasad baa kala hadlaya timir baad weydiisan ku yiri wax timirtaasaan arkay waxaan ku arkay hawada sidee baan u heli kareena waxaan ku yiri anaga nagu filla marada anaga nagu fillayn dee waxba heli misban ku marka waxa kala badan inta aanu soo saarayno iyo baahida dadkuna waxay xiisanayaan tan bilow midhihii timirtu jawaana lagu duubay iyo bacay wax lamida ma shimbiraha kaga ilaalinaysan waxa laga ilaalinayaa shimbiraha waxa laga ilaalinayaa nin ciidan fara badan wata oo aanu isahayno naatiyo warsa aanu kala nahay ninka daayarka la yiraahdo oo deegaankan aad ugu badan oo ku tarmay geedka garawaaga leeyahay midhihiisa cunaa timirtu xilligan ay bislaanayso ee casaatay ee timirta tahay qaraab mal dhulku qaraab waxa timirta dabadeedna dagaalku wuxuu ka dhaxdhacayaa timirtan iyo dadka ilaashanayay isaga markay leedahay maraas ku xidhan tahay ma goyn karo haddii aan marada ku xidhnayn saa u qaawan tahay uu dhufanaya markii uu goosanaya inta uu rifayo marada iyo waxa isleeyahay gooy baa qofku ku soo gaaraya saa laajigad waa ka difaac shimbiruhu marka ugu horeysa ee uu bislaado meel ay joogaan buu isugu habarwacanayaan iyaguna waa ka difaac dhaska fara badan leh ee dabaysha xayaadu wadato ee marka iyo malab la ku dhigaya way ka qabanayaan difaac bay uga tahay waa protection qofka maanta bilow doonaya inuu bilaabo beer sidan oo kala oo timir uu deegaankan ka beerto ama deegaamada kale ku haboon maxaad kula talin lahayd waxaan kula talin lahaa inay wax fudud oo si fudud u bixi karaysa ay tahay reer miyiga marka leeyahay guryaha timirta reerka sanadka loogu keeno timir baa ka baxda taa haddii laga shaqeeyo lafii reerku daadiye ama meelaha ku saxarooday ee baxay haddii laga shaqeeyo timir bay noqonaysaa tala beerana way fududahay tacab badan uma baahna waa waraabin iyo ka shaqayn adkaysi fara badan bay leedahay waraabintii gartay ka shaqaynta maxay noqonaysaa ka shaqaynta waxay noqonaysaa waxa laga ilaalinayaa daayeerka waxa laga ilaalinayaa shimbiraha waxa laga ilaalinayaa quranjada waxa laga ilaalinayaa macaanjecesha waxa laga ilaalinayaa aboorka waxa laga ilaalinayaa waxa duulo dhan wad ka ilaalinaysaa ka taxadiraysaa inta xasharaad duusho dhan wad ka taxadiraysaa xasharaad waxa ugu taal daran quranjada
iyadaana ugu dhib badan markay timirta tahay waxay ka gelaysaa gunta xilliga xagaaga ee kulul ee biyo weydo oo aanku ku dhaco ayaa waxay gelaysaa geedka guntiisa hoose waxay cunaysaa xididada biyay ka dhiganaysaa way ku dhalaysaa way ku tarmaysaa xabadii gashay malaayin aad ugu tegaysaa ma leyn kartid ma dabargoyn kartid ilaah baa kugu eegaya makhluuqa intaa leeg adigana gunta geedkiiba ka jaraysaa aniga waxaa dhacay geed ay ku yaalaan 108 kiilo oo timiri inuu dhacay xagaa 108 kiilo baa saaraa dabal xagaadii baa ku dhacday shawq guntay ka qoday baashaasi xididadiiba way dhaawacday dabaysha markay ruxday midhihiina waa jiiteen wuu dhacay waxay noqotay in 3 maalmood 60 qof la soo keeno la qaado wiish ma soo gelayo 60 qof in la soo keeno la qaado geedka dib loo beero marka saasay waxa laga yeelanayaa wax fara badan noocaas bilow marka imise geed baa kuugu yaalo timira beertaada way kala weeyeen waa 200 boqol baa imika hana qaada boqolla kuwa imika maraa bilaabay baa ugu horeeya waa 200 bal ka hadda aynu ku dhawaano bilow imika geedkani waa geedkaas la filyahay sanadka dambe uu dhalaya intee uu jiray kan imika waa sanadkii saddexaad kan waa laba dhal sanadkan iyo sanadka hore u dhalay waa sanadkii lixaad buu galay imika sanadkii lixaad labada sanad kan balsoogay gacanka waxa ku yaala midaan inta lag buu bixiyaa markaa kan oo kale oo bixinaya 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 baa muuqda lixna waa laga jaray markii la sii korin kari maayo haddii adiga iyo aniguba aynu arki jiray timir goosarad ku jirta maanta geedkii baa laga soo gooynaya bal hadda marka geedka laga soo gooyo ayaa idinkuna nala arki doontaan aniga kulliba maanta ay ugu horeysa timir sidoo kale dhirta looga soo jarayo hadda ka saar walaalgalka ninkan waxa uu ka mid yahay shaqaalaha beerta isaga imika noo soo jaray marka kuwa xagga sare ka baxa iyaga salaamba u baahanayaan soo ma kaasaynu eegana isagana kaaynu ka harsanay wuxuu 12 gacan buu dhalay 12 gacan lix oo gacankiiba markaa muxuu noqonayaa gacan ba 10 kiilo gacan ba 8 kiilo gacan ba weyn tanoo kale imika caadi ma bislaatay waa wada malab waa nooc ugu macaan والنوع ugu macaan uu ka macaan yahay kan hore in haysanay waa abu sabiib waa timir yar yar oo horta iyada qudheeduna waa kala nooc Soomaaliya imika tani way ka yara duwan tahay waa timirtii hore in arki jiray ilaa 6 nooc bay ka kooban tahay tani waa nooc farayd kamida waa nooc kamida taas oo yar yar oo macaan qaar ba ka sii yar yar abu sabiib aad uga sii macaan tanina way ka sii macaantay kan imika waxba laga tagi maayo xabad laga tagay intii aan la daad ahayn hore looga jaray waa laga jarjaray dabadna intii isku filka noqotay qaar baa yaraan iyo way isreebaysa sida bisadu u cunto kuwa aan korayn ama u reebto saasoo kale looga reebaya midhaha aan korayn oo marka qaar laga googooyay markii la arkay inaan bislaanayn oo aan geedku wada korin karayn baa laga jaray dabadna intuu korin karay baa loo daayay dabadna waa ka gacmada sidaas loo yaryariyay hadduu miisaanka faraha badan lagu daayo waxa laga yaabaa geedku nafaqada uu helayo iyo cimiladu ku xeeran inuu korin kari waayo dabadna waxba khariif isla noqdaan oo uu timirtii ka adkaan waayo bilow markaa geedka ugu midho badani intee leeg buu dhalaa timirta 300 kiilo waa laga jaraa timirta laakiin annaga kaayaga geed kaliya laga jaraa waa se timirta laga shaqeeyo wadamada horumari ka shaqeeyaan carabtu annaga geedka ugu badan 100 kiilo wax ka badan ma qaadi karo intayadan taayadan 100 kiilo waan arkay 80 kiilona waan arkay magaalada Berbera waa bishii August waa xilliga xagaayadu ay dhacdo aad iyo aad ka kulushahay laakiin de maanta sabab baana Soomaa maanta baana waxa laga baxay xilligii dabeelaha hanfigay dhici jireen waxa la galay bishii 8aad waxa soo dhow badfuranka iyo bishii 9aad huur baa la galaya oo markaas way ka dareed bishii hore July miya way ka dareed dabeel hanfila dhacaysay maanta dabeeli ma jirto weydanka sawirka qaadi karaya huur un baa jiraya galabtii waa huur ku geedkii kala sheegaysay hadda aynu eegno bilow
sidaad ii sheegtay waanaynu aragnay dee timirtii iyo cambe lafkii maxaa kale ka baxa deegaankan berbera marka laga tago kaashka roobkan yarar waxaa ka baxay saytuunka guwaafa waa ka halkan ka bilaabmaya waxaan oo dhan waa saytuun uu xagaasaday iminku isbedelayaa caleentii cusbeed imika koraysa iminka tacabkii la gelinayo xagaa ka baxaya yurub marka barafku dhaqaaqo dhirtoo mudxsan buu ka tagaa dabadna cimilada isbedesha markaas wax laga goosta xeebta berber waa la mid xagaa oo dhan cadaab lagu jiraa xagaagu markuu baxo ayaa dhirtu dib soo noolaataa caleenta soo saartaa tacabka la geliyaa marka hadda la bilaabaya hadduna ka go'aya midhuhu gartay geedkani waa geedkaad ii sheegaysay soo maaha ka midkaa dhirta ugu timirta badan waana geedkaa timirtiisa horaa dhadhamiseen wuxuu 12 gacan baa ku yaalay 6na waa la jaray 6na waa loo reebay way geedkaa looga baqay marka 6da loo reebay weli ma bislaan miya ma wada bislaadeen waa kun dhulka yaalla qaarna waa laga soo guray timirta hore aynu cunaynay isagay ka goday tanna bal waneegana waatay dhirtu laakiin sida dhirta dee midhaha kala bixisaba way kala duwantayso ma faraadkooduna uu kala duwan yahay midhaqaadkooduna uu kala duwan yahay geed baa 100 kiilo qaadaya geed baa 10 kiilo laga goynaya geed baa 15 laga goynaya gacanka kale keen geed baa laga goynaya geed markaas ku ma hamro kan waa kii midhihii hore aynu ka guray intan oo dhan midhaha waa laga guray waa geed isaguna faraadka hore ah oo ka midha macaan oo dhirta midhaha macaan leh carabtu ay aad u ammaanto maanta qudheedu timirtaan cunay waa intaan sanadkii oo dhan cuni jiray markaad suuq magaalada tagto caani gaala hesho qadadeedu waa caaniyo timir waa sidii dhaqanka Soomaalidu ahaa maanta timir caanu ku qadeeyay marka ninka labada isla helaa berigii hore constipation ma jirin dhiigkarna ma jirin macaanna ma jirin inta xanuun la sheegana ma jirin waxa keenay chemicalkan la isku dareeyo sanuunadan iyo isku dhaxkariskan iyo waxaan la adeegsanayo chemicalka waan sidii ay ahayd u miisaanayn oo islaamu aan u garanay imika cid isku cuntaa ma jirta ogaanta timirtii iyo caana geeli ana ba isku cuna way hala yarna waan leeyahay way timirtuna waa tan haddii wadana taa commercialka waan cuna ma sha Allah caloosheedina isma taagto biyaha waxaan ka warhayaa in deegaankani uu hodan ku yahay biyo goora marka maceel baa leedin mise ileeladahaasa ka soo jiidataa absalana biyo waa durdur ilaah baa bixiyay in imka xaga 30 kilomitir inaga xigtay ka soo bay ka imanayaan buurta markay marayaan sanqadhooda waad yaabaysaa maalintii daadku idinku yimi gaarigooda ka qaaday oo idinkii dhex joogay biyihiisa u soo socdaan halkan ay soo galayaan inta beer xagga iga xigta iyo kuwa xaggan iga xigaaba waraabinayaan tamartii lagu ururin lahaa ee beeb loogu maran lahaa ee ciidda looga dawi lahaa ee biyo batala lagu geyn lahaa tiun baa naga maqan aqligayguna uu soo kordhin waayay aan isla talo heedu Soomaalidu waxa ma qabsato geedka ma heedii beerto bay lahayd marka marunba aqal lagu soo degayo aan batala la gaarsin ilaa halka intuu ina batala waa beerad ilaah baana sameeyay safarkan waxaa lagu weheliyaa cabdiqaadir maxamed ismaaciil oo ka mid ah khubarada wasaaradda beeraha ee Soomaaliland aad baan ku salaamay cabdiqaadir waa ka qaaday cabdisalaan aad baad u mahadsantahay waan baqlaysay bila warbixintoyna siiyay beertiina waad aragtay ka waran sidaan u beerayo wallahi aad iyo aad bay wanaagsan tahay runtii bilaad baan maanta maaragtay waxna farxad geliyay haddaan nahay bahda beeraha ayaan beertiisa ku aragnay runtii waxa weeyaan timirtu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu badan ee dibadda ka soo dhoofsano sida wadankeena uga baxayso iyadoo qurux badan oo maaragtay cimiladeena iyo wadankeena ay maaragtay isaga baxayso oo aad arkaysaa runtii waxa weeyaan waxay ka mid tahay hididiilada oo beeraha maadaama dadkeenu aad u soo fahmayaan dad badan oo maaragtay lacag haysta oo meel ay geliyaan la ayay runtii ay maaragtay ku soo dhiiranayaan sidoo kale bile kaliya tamaha inuu wax soo saaray waa shaqo abuur way wax arkaysaa dadkeenu in dad badan oo bil camal yihiin in dhalinyaradeenu badaha ka talaabiso marka wax kala daayo waxay timirtii
oo ay dadkeenu aaminsan yihiin inaanay wax dalka ka bixi karin arag ayuu runtii maaragtay bile ka muuqday uu soo bandhigay beertan bila waxaa ka baxa timirtii aynu aragnay cambalafkii iyo saytuunkii deegaamada xeebaha sidan oo kale maxaa kale ka bixi kara horta deegaamada xeebuhu waxa weeyaan xilliga jiilaalkii waxa ka bixi kara noocyada kala duwan qudaarta oo dhan ka bixi karta xilliga xagaaga kulula timirta ayaa si fiican ugu bixi karta marka xilliga hadhow jiilaalka way isbedel baa iman doona halkan qabow bay noqon doonta dhulka kala wadanka Soomaaliland inta kale macnaha wax gali doona xilli jiilaal oo qabow marka halkan markay gaadho xilliga jiilaalka waxa si fiican uga bixi kara noocyada kala duwan qudaarta oo dhan ayaa ka bixi karta haday noqonayso tamaandhada basbaaska qajiga oo loo wixii maartay maxay tahay kijada lagu kariyo dhan si fiican bay uga bixeen xilliga xeebta timirtana waxa weeyaan wadagta xeebteenu waa xeeb dheer 850 kilomitir marka wada arkiga hadii maxay hayto si fiican looga faa'iideysto dhulka xeebtoodu oo maaragtay wax wanaagsan baa laga soo saari karaa bila warbixintiisii waad dhageysanaysay isla markaa beertii waa dhex joognaa beertiisii maxaad kula talin lahayd runtii waxa horta bila waxaan kula talin lahaa inuu horta dadaalka halka ka sii wado oo uu tirada dhirta iyo maaragtay uu mashruuca sii ballaariyo waa qodobka labaad beerta horta waxa weeyaan waxa jira xagga nafaqada geedku halkan buu iskaga yaalaa meel kale wax u doonan maayo inta ciidda ku hareeraysan ayuunbuu wixii nafaqo u baahan yahay ka helaya marka bila taladan siinayna waxa weeyaan in uu maartay ka faa'iideysto digada oo iyaduna maxay tahay nafaqo dabiici ah oo geedkana wax soo saarkiisa kor u soo qaadaysa ciidii iyo deegaankii iyo caafimaadkii dadka cunayay midhaha midna aan waxba yeelahayn wax soo saarkiina kordhinaysa halkii uu ka isticmaal lahaa carar fiiqeeyaal kiimikaal oo wax weyn ciidiina wax yeelaysa maxay tahay midhaha laftooda marka dadka cuni doona ka faa'iideysan doona side effect ku yeelan doona laakiin bila wuxuu inoo sheegay inaanu haba yaraatee waxba kale ku isticmaalin beertiisa laakiin nafaqada dabiiciga sida digada xoolaha oo kale way si wanaajinaysaa carradii wanaajinaysaa nafaqadii kor u soo qaadaysaa marka wuxuu geedku nafaqo badan helo midhihiina uu badinayaa marka maxay tahay digooyinkana waxa ugu wanaagsan maxaa la yiraahdaa looda iyo digaaga hadii la helayo ta digaaga labadaas kuwaas ugu fiican oo nafaqada maartay ku jirta isla markaana hore burburayo ciidii markiiba la falgelay aad iyo aad baad u mahadsantahay horta intii beertaan dhex joogay maanta timir waa ka noolaanay iyo cunisteed intana bila hadiyad buu noo siiyey oo waanu la sii safraynaa haddii la yidhaahdo dee waa taasa haddii aad islahayd timirtu talow intay midho dhalisaa iyo sidee u eg tahay dee maanta waa taa sidii arkayseen dee geed dhanoo la soo jaray oo timirtii ayaa bila hadiyad ahaan noo siiyey isla markaa sidan waa sida loogu iibgeeyo timirta beertan ka soo gooda waa timir biyo guure berbera Somaliland bila markaa iibgeynaysaan sanaa u xidhxidhaan miya markaa iibgeynaysaan u xidhxidhnaa markaa bilana ma leh waa berbera iyo biyo guure iyo Somaliland markaa magaca bila iyo ka saaray beertiisa mar waa reer biyo guure waa production ka wada leh marna reer berbera wada leh marna reer Somaliland waa waxa xamar noo keenay iyo telefoonkooda soo dadka Somaliland iyo berbera biyo guure ku qortay marka saas waa magaceedii iibka gartay